Inta badan xirfadlayaasha aadka ugu xeel dheer dhaca farsamaysan waxay adeegsadaan funuun kala duwan. Ninkan Afrikaanka ah waa mid si aad ah u yaqaan adeegsiga sixirka madow, wuxuuna ku helay magac iyo caanimo saa'id ah. Ninkan oo lagu magacaabo Fotanga Babani Sisoko waxa uu sixirka malaayiin dollar uga dhacay Dubai. Balse intaan u gudagelin faahfaahinta sheekadan, haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub, subscribe saar, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeen ugu dambeeyay. Mahadsanid. Haddaba waxaan muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa sidii ay Fotanga Babani Sisoko ugu suurta gashay in uu khiyaano bangiyada Dubai iyo sirta ka dambeysa. Laakiin haddii aad ka heshay muuqaalkan, like saar, maxaa yeelay waxay noo tahay dhiirigelin. Sidoo kale waxaan idinka codsanaynaa inaad ku sii faafisaan baraha bulshada si uu dad badan u sii gaaro. Fotanga Babani Sisoko waa muwaadin Afrikaan ah, gaar ahaan waxa uu ka soo jeedaa dalka Mali. Marka magaciisa la soo hadal qaado, waxaa durbaba maskaxdaada ku soo dhacaya in uu ka mid yahay tuugada dunida ugu waaweyn ee sida xirfadaysan malaayiin dollar u dhacay. Waxa uu magaciisa dunida oo dhan ku faafay markii uu malaayiin dollar si xirfadaysan uga dhacay bangi ku yaal Imaaraadka isagoo adeegsanaya sixir madow. Qisadan ayaa ka soo bilaabatay 1 Agoosto sanadkii 1995 markaasoo Sisoko u safray Imaaraadka. Waxa uu inta badan ku labisan jiray labiska ay caanka ku yihiin muwaadiniinta waqooyiga Afrika. Fotanga waxa uu amaah ka dalbaday bangiga Islaamiga ah ee Dubai si uu gaari ugu soo iibsado. Maamulaha bangiga oo magaciisu ahaa Maxamed Ayub ayaa qaabilay, waana uu ka ogolaaday in uu siiyo amaahda. Intaas kaliya maahane, labadooda waxaa dhex martay sheeko aad u dheer, waxaana dhex maray isfaham iyo xiriir wanaagsan. Intaas kadib, Fotanga Babani Sisoko waxa uu martiqaad u fidiyey Maxamed Ayub gurigiisa, ayuuna ugu yeeray si uu ula casheeyo. Halkaas ayuuna ka bilaabay kaartidiisa uu dejistay isagoo adeegsanaya sixirka madow. Intii ay wada fadhiyeen miiska cashada, Fotanga waxa uu sameeyey indha sarcad ka yaabiyey Maxamed Ayub, wuxuuna u sii daba dhigay in uu leeyahay mawhibo ka sii weyn arrintaas, isla markaasna uu la macaamilo jinniga. Sidoo kale wuxuu u sheegay in uu awoodo in haddii uu keensado lacag uu u badin doono ama u laba jibaari doono. Intaas kadib, Fotanga waxa uu maamulihii bangiga u sheegay in kulankooda xiga uu la yimaado lacag si uu u tusiyo awoodiisa sixir, ugana dhigo lacag aad u fara badan. Ficil ahaanna maamulihii bangiga kama labalabayn soo jeedinta sixiroolaha reer Mali, wuxuuna ula yimid lacag fara badan isagoo ku taamayay in loo badiyo. Markii uu Sisoko albaabka ka furay, maamulihii bangiga waxa uu bilaabay qayli iyo walwal, maxaa yeelay waxaa soo weeraray jinnigii. Balse Sisoko ayaa u sheegay in uu isdejiyo, maxaa yeelay haddii jinniga uu ka xanaajiyo, suurtagal ma noqonayso in loo badiyo lacagta. Maamulihii bangiga si dhaqsi ah ayuu u ajiibay dalabka sixiroole Sisoko, wuxuuna boorsadii lacagta ugu soo tagay qolka fadhiga, waxaana uu istaagay ama ku sii sugay balakoonka. Daqiiqado kama soo wareegin, waxaa qolkii uu lacagta ugu soo tagay ka soo baxay qiic. Sidoo kale waxaa ka yeerayay codad argagax leh. Intaas kadib, waxaa qolkii ka soo baxay saaxirkii Fotanga oo wata lacag aad u badan, ama lacag aad uga badan tii uu maamulaha keenay. Si aad ah ayuu ula yaabay maamulihii bangiga, wuxuuna aaminay in nasracaadkii sixiroolaha. Taas waxay wadada u furtay in Sisoko si dhib yar lacag malaayiin ah uga dhaco bangiga Islaamiga ah ee Dubai. Wixii maalinkaas ka dambeeyay, maamulihii bangiga waxa uu noqday mid ku qanacsan ninkan adeegsada sixirka madow. Waxa uuna si joogto ah ugu keeni jiray lacago fara badan oo bangiga ka soo qaaday, isagoo aaminsan in aysan dhibaato u keenin lacagta uu bangiga ka qaado, maadaama Sisoko uu awood u leeyahay in uu u laba jibaaro. Waxaa la sheegay in maamulaha bangiga uu ninkan sixiroolka ah 180 mar koontadiisa ugu wareejiyey lacago. Arrintaas ayaana dhacday intii u dhaxaysay 1995 ilaa 1998. 3 sano kadib, waxaa soo shaacbaxday sheekada Sisoko, gaar ahaan markii uu bangiga uu muddadaas daldalanayay soo wajahday hoos u dhac dhaqaale oo aad u xoogan. Mid ka mid ah jaraa'idyada ka soo baxa Dubai ayaa daabacay in bangiga uu la dhibtoonayo xatooyo loo geystay, taasoo walaaca ku sii badisay dadkii lacagaha dhigtay. Waxayna bilaabeen in ay lacagahooda kala baxaan. Dhanka kale, xukuumadda ayaa isku dayday in ay xaaladda ka khafiifiso bangiga, waxayna bilowday baaritaan ku saabsan sababta keentay dhibaatada. Halka dhanka kale, Sisoko uu isaga raaxaysanayay lacagta uu sixirka madow uga dhacay bangiga. Isbuucyo kadib, Fotanga waxa uu u safray Mareykanka, gaar ahaan magaalada New York, waxaana uu halkaas ka furtay akoon cusub oo uu ku soo xawisho lacagta uu ka soo dhacay bangiga Dubai.
sidoo kale waxa uu halkaas kula kulmay kuna bartay gabar ka shaqaynaysay bangiga si degdeg ah ayuuna u guursaday. waxaana baritaanadii lagu sameeyey ay xaqiijiyeen in gabadhaas uu guursaday ay ka gacan siisay xiriirka uu la yeeshay bangiga City ee magaalada New York. akoonka uu ka furtay New York waxa uu suurta gashay in uu ku soo xawisho ilaa $100 milyan. sidoo kale baritaanada lagu sameeyey waxa lagu ogaaday in uu $500,000 siiyey xaaskiisa cusub si ay gacan ugu siiso soo wareejinta lacagta ka taal Dubai. markii uu ku soo laabtay Dubai, shaqaalaha bangiga Islaamiga ahaa ee uu dhacay ayaa bilaabay in ay kashifaan xaqiiqada jirta iyo wax dhacay. halka dhanka kalena uu cadaadiska ku sii badanayay maamulihii bangiga Maxamed Ayuub, gaar ahaan marka uusan soo laaban wax jawaab ah ka waayo Sissoko. ugu dambeyn, maamulihii bangiga waxa uu go'aansaday in mid ka mid ah saaxiibadiis uu la wadaago xaqiiqada iyo siday wax u dhaceen iyo sidii uu lacagta bangiga ugu xawilay koontooyinka Sissoko. lacagtaasoo markii la isku dardaray dhammayd $242 milyan. intaas kadib waxaa xabsiga la dhigay maamulihii bangiga, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah, halka furitaanka Sissoko isagoo maqan asna lagu xukumay 43 sano oo xabsi ah. waxaa warqad lagu soo xirayo loo diray booliska adduunka ee Interpol si cadaaladda loo horkeeno Fotanga Babana Sissoko. laakiin Fotanga waxa uu xubin ka noqday baarlamaanka dalkiisa Mali muddo 12 sano ah, gaar ahaan sanadkii 2002 ilaa sanadkii 2014, taasoo ayana ka saacidaysay in uu helo xasaanad u damaanad qaadaysa in aan la soo xiri karin lana maxkamadeyn karin. dhanka kale, Mali ma saxiixin sharci ogolaanaya in muwaadiniinteeda lagu maxkamadeeyo meel ka baxsan. 20 sano kadib markii ugu horeysay ayuu Sissoko ka hadlay dhacdadii uu sixirka madow malaayiinta ugu soo dhacay bangiga Dubai, waxaana uu wareysi muuqaal ah siiyey farac ka tirsan BBC-da. waxaana uu ku qaabilay mid ka mid ah qasriyadiisa Mali isagoo xor ah, wax cabsi iyo walwal ahna aan qabin. intii uu wareysiga bixinayay waxa uu si cad ugu faanay in lacagtaas uu soo dhacay ay u rumaysay riyooyinkiisii dhammaa, isagoo aasaasay mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ugu weyn Mali, waxaana lagu magacaabaa shirkadiisa diyaaradaha Air Dabia. magacan ayaa u laabanaya deegaankii uu isaga ku dhashay. sidoo kale Sissoko lacagtaas uu ka soo dhacay Dubai waxa uu ku abuurtay mashaariic fara badan oo kala duwan, sida inuu samaystay warshad samaysa labiska ragga, ka ganacsiga gawaarida iyo mashaariic kale fara badan. haddii aad ka heshay muuqaalkan, la sii wadaag asxaabtaada, sidoo kale like saar si ay dhiirigelin noogu noqoto. mahadsanid.